Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caqabadaha hortaagan kobaca dhaqaalaha dowladaha soo koraya. Waxaa habboon in ay jiraan iskaashi u dhexeeya xukuumadda iyo shacabka si loo xaqiijiyo kobaca dhaqaalaha isla markaana loo hagaajiyo umuuraha bulshada, dhaqaalaha iyo habdhaqanka ummadda. Sidaa daraaddeed waxaan aragnaa in farqi weyn oo u dhexeeya dowladaha horumaray iyo dowladaha soo koraya dhanka kobcinta dhaqaalaha iyo horumarintiisa. Wadamada horumaray inta badan waxay iska leexiyeen wixii caqabado ah oo ka hortaagnay in ay kobciyaan dhaqaalahooda, halka dhanka kale wadamada soo koraya ay hortaagan yihiin caqabado tiro badan oo u diidan in ay kobciyaan dhaqaalahooda isla markaana horumariyaan noloshooda. Haddaba caqabadahaasi waxaa ka mid ah kuwan soo socda. Nambarka koowaad, caqabado ka imaanaya dhanka bulshada. Waxaa bulshada ku badan dhaqanka ah waxaana waa ceeb oo waxaa la ceebeynayaa isla markaana la quursanayaa, sidoo kalena il xun lagu eegayaa dadka bulshada u hayo shaqooyinka nolosha ummadda lafdhabar u ah, sida shaqaalaha ka shaqeeya birtumidda, soona saara midiyaha iyo faasaska, shaqaalaha dhisa isla markaana dayactira guryaha. Sidoo kalena bulshada waxay quursataa shaqaalaha muruqmaalka ah sida xamaaliyaasha, kuwa qoda musqulaha. Waxaa si daran loo yeeshaa shaqaalaha ka shaqeeya nadaafadda. Dhammaan shaqaalahani la quursanayo hawsha ay hayaan waa shaqo muhiim u ah bulshada, oo haddii ay sameeyaan shaqo joojin waxaa gebi ahaanba istaagaya nolosha. Midda kale, bulshadani waxaa ku badan jahliga, sidoo kalena waxaa ku yar aqoonta. Waa ummad aan ixtiraamin sharciga iyo kala dambeynta, waana bulsho aan dhiirigelinin in wax la barto. Waa shacab isaga nool nolol aan nidaamsaneyn, ma daryeelan afraadooda caafimaadkooda. Waa bulsho uu ku badan yahay furiinka iyo mashaakilaadka qoysaska. Waana shacab aan horumarin xirfadaha isla markaana qofkii bulshada horumarkeeda ka shaqeynaya kala baqayla dhiirigelinta. Nambarka labaad, caqabado ka imaanaya dhanka dhaqaalaha. Kala daadsanaan ayaa ka jirta haykalka dhaqaalaha wadamada soo koraya. Waxaa kaloo jiro maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan oo galay meel kasta. Ma awoodaan ummaddan in ay soo saaraan wax tayo leh oo u dhigma wax ay soo saaraan wadamada horumaray. Dowlad kasta oo ka mid ah wadamada soo koraya waxaa lagu leeyahay deyn tiro badan. Ma ilaaliyaan xuquuqda mustahlikiinta. In ay tartamaan ganacsatada wadamada soo koraya way ay yar tahay, oo ganacsato tiro yar ayuu suuqa u xiran yahay. Waxaa lagu xadgudbaa kheyraadka ka dhexeeyay ummadda oo dhan oo waxaa ku takrifal koox yar. Nambarka saddexaad, caqabado ka imaanaya dhanka siyaasadda. Waxaa jira faragelin siyaasadeed oo ka imaanaysa dhanka dibadda, lana faragelinayo umuuraha dowladaha soo koraya iyo qawaaniintooda, laguna qasbayo in ay wax ka bedelaan sharciyada iyo xeerarka u qoran. Sidoo kalena waxaa ka mid ah caqabadaha maalgelin ka imaanaysa dibadda isla markaana wadata shuruudo adag, mashaariicdaas oo inta badan aan wax laga faa'iideynin. Tusaale ahaan, waad garan kartaa farqiga u dhexeeya mashruucyada ay maalgeliyaan reer galbeedka iyo midda ay maalgeliso dowladda China. Waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha ka hortaagan in uu kobco ama uu koro dhaqaalaha dowladaha soo koraya in aysan jirin dad awood u leh ka shaqeynta, qorsheynta iyo maareynta kobaca dhaqaalaha. Waayo dowladaha soo koraya ma haystaan dad ehel u ah ka shaqeynta hawshan isla markaana awooda in si sax u maareeyaan kobcinta dhaqaalaha iyo horumarintiisa.